daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo ka mid ah rugcadaaga siyaasadeed ee xisbiga talada haya ee kulmiye wasiir ku soo dhawaad markii hore SBC bismillaahir rahmaanir rahiim wax walba qadarin gaar ah bay leeyihiin munaasabadda aynu joogno waa munaasabadii xisbiga aynu taaganahay oo hawlihiisii ka baaqday intii hawlaha kale lagu jiray hawlo badan ka baaqdeen hawlahaas dib boorka looga tumaya bidillah halkan 23 bisha waa shirki booramu ka dhacaya hadii alla yeeli caasimada waa loo diyaar garoobay maskaxda nafteeda waa la sii tireen gareynayaayo maskax marka halka shirka dhismo iyo horumar xisbigu leeyahay baa lagu qabyatirayaa insha Allah bidillah wasiir waxaan rajaynaynaa in sidii horeba u dhici jirtay wax kasta isqabadka iyo inta yaryar oo isjiidjiidku ha dhaco laakiin waxaan rajaynaynaa in khayr ka soo baxayo shirka waxaan rajaynaynaa in safgarad ka soo baxayo dhexdiisa xisbiga dhexdiisa waxaan rajaynaynaa in cidda madaxda ka ah oo mas'uulka ka ah calaamad muuqatiyo boorkeedii leeyahay kii number 2 ahina boorkeeda kii number 3 guna calaamadiisa leeyahay oo waliba la yiraahdo aan la oranin wali lama sharciyeynine shirka soo socdaa la sharciyeynaya laga daayo wasiir haddaan su'aal ku weydiino adigu shakhsiyan Axmed Xaaji Cali Cadami ahaan marar badan baa xisbigu inuu isqaban jiray dhaqan iyo caadad u leeyihiin in marar badan kulmiye uu kala jabo heshiiyo kala tago sidee u aragtaa garabka la baxay badbaadada iyo dimuqraadiyadda jab eriga oo jabniin ku ka saaro hadduu jabo lama meel u maray lama arkeene ma jabine والله حزابته iyo marka jirana samanayo حزابته taariikhda in soo marto waa weynayd oo raga waa weyn hogaaminayeen marka aynu halka ka xisaab qaadano waxaan aaminsanahay kuwa horena si kasta hal isu jiido waa fayoobi iyo nabadgelyo laga soo baxay wali shir hebel baa fashilay kol anigu ma maqal dabadeedna shirarka shir mana sheegayo macnaynayo kaliya hadda waxaanu ka hadlaynaa waa kulmiya laga hadlaya kulmiya markaan ka hadlayno xasaabta kalena nidaamkooda iyo procedure-kooda gaarka ah bay qabaan oo yaani hadaan xisbiyadoo dhami jirin oo isu wada jirin qaranimo ma jirto waxaan markaa aaminsanahay anigu in guul laga soo baxayo shirka waxaan aaminsanahay safgarad laga soo baxayo shirka waxaan aaminsanahay inaan waxa dadka qaar saadaalinaya waxa xun saadaalaya waxa ay sheegayaan wax opposite-keeda oo ka duwan oo ka khayr badan baa shirka ka soo baxaya Cadami wasiir waxaad kamid ahayd xukuumadii hore ee kulmiye muddo 7 sano ah xilka haysan iyo badh dad badan waxay idinku eedeynayaan ilaa imika in xukuumadina ay ahayd mid musuq badan ragaadiyay dhawaan waxa la sheegay 80 milyan idinku lahaayo deyn ah arintaas bal adu sidee u aragtay in xukuumadii nimka eriga 80 falsa ah qof hadalkii iyo faraskii ka gaabiyay bay ku iman kartaa mooyaan wasiirka iyaga hadda jooga runtii waa nin caan ku ah مثلا integrity-ga istiqaamad buu leeyahay garashuu leeyahay wasaaradda badan baa lagu imtixaano mid faa'iido iyo midho dhalay wasaaradihii loo dhiibay oo dhammi haddana waxaan aaminsanahay waa wax adduunka oo dhan waa jira arabku inuu leexdo adduunka jira haddii aanad arrimaha ka diyaar garoobin in lagu boobsiiyo oo dabadeedna la yidhaa intaas oo waxay lacagaynaan haysanba walacagta la sheegayo marka la yidhaahna dadku hurdaday ka kacayaan wax la odhanayo war maxaa loo lahaa waa la lacag beelay waa laba aan islahayn laakiin anigu waxaan aaminsanahay ninkaas waa nin integrity loo subcad doo wasiirnimo leh buu ahaa marka wax badan oo uu soo qabtay oo waa ragga aan sheeganaynine liiska ugu qoranina waa jiraan qofkana in wax walba dhinaca xun kaliya laga eego nin baa huwan kaliya oo waxa loo keenay wasaaradda maaliyadda inuu cadeeyo oo qurxiyo oo nidaamkii uu ku soo maray dawladihii hore uu ku soo maray uu haddana la soo baxo ثقافتيس iyo garashadiisa oo la soo baxo shacbigu xaq buu leeyahay boqol su'aalood mid lagu soo ridayo iyo mid kale waa la iska soo ridaya laakiin xabada la soo ridayana inaad iska ilaaliso baa loo baahan yahay
meesheedii ma aha waa meel maaliyadda cid walbi xaggeeday soo eegaysa waa la hunguraynayaa hay-ad walbi waxay isleedahay talo budgetka ma ku jira haddaan ku jirana intee laygaga qoray bay leedahay dabaa jira intaa wax ka badan oo lacagtii lala yimid waa la sheego hanti dhowrkii waa noolyahay oo dadkii ma wada dhimanina waa wada joogaan waa la ogyahay haddii intaa la haysan lahaa malaha shirka baan sidaa iska sii wadano in muddaa baa la odhan lahaa waxaan u arkaa wixii la badbaadin karana in la badbaadiyo cid alla ciddii badbaado doon aan burburdoon ahayn ee badbaado doona in la raali geliyo oo wax alla wixii markaa macquula oo loo qaban karo laga da'ayo oo la yidhaa nin walba tamartiisii la tusiyo loo xoog sheegaye dacsatalmayid xaraam bay carabtu dadka aqoonta carabiga alihi bay yidhaahdaan qofku isagaba haddii uu xataa dishayba ama aad meeshiiba ka eriday dikasho kale waa inaan loo raacin baan anigu aaminsanahay lagama maarmeen ragga aan laga maarmin in la soo celiyaan aaminsanahay oo la maslaxo ma garatay haddii kale habaan mansuuqa bay qornaysaa oo dabadeedna waa lagu kala tegayaaye xisbigu ma joogayo weligii haddii kale axsaab baa matalan 50 jira qaar baa 70 jira kuwaa ku raagay oo matalan ma dad baa loo dhiibo la isbedelayaa daruuri maaha ninkii berigii la yaqiinay kale in loo dhiibo ummaddu waxay ku tababaranaysaa axsaabta kale hadda waa soo kacaysaa iyana waa wadana ujoodii anigu waxaan aaminsanahay yaan laysu xoog sheeganin caqligu ha shaqeeyo xisbiga dantiisa iyo ummaddu laba isdiidaya ma aha ma garatay hadduu qofku yaro khatifo nalka ha loo badiyo hala yidhahdo xagga u soo baydh saasaan anigu aaminsanahay laakiin ma aaminsani in laga takhaluso qofkii kelmad yidhaahba jecelahay wasiir inaan ku weydiino saldhiggii milatari ee imaaraadka carabta markii halkaa la siinayay waxaad ahayd wasiirka gaashaandhigga ee somalilan arrintaa maxaad ka ogeyd waxaan ka ogaa mar baanu wada tagnay maca wasiirka hadda qorshaha jooga oo maaliyadda isagaa noo oday jeermaan ah waxaan anigu marmaryaabaa ma dadka beladoonka abaa idinka naga xoog badan wax alla wixii la soo qaado hagaagsanaa la qaadi maayo kelmadda xun xarfal cilla bay carabtu tidhaahdaa baa la raadinayaa meel lagu simbiriirixdo dabadeedna ninkii aan kabihiisu adkayn waa simbiriirixanayaa laakiin waxaan aaminsanahay meel laga faa'iido oo la yidhaah kumanyaal iyo boqolaal malaayiin baa yaalla iyaguna markaa inooma horseedi karaan waxa inagii baale inagaana qorshaysanayna marka dadkana dabcan la gelinayo oo aroortii lagu soo toosayo malaayiin arrinta saldhig maxaad ka ogeyd wasiir haddii aad ku soo laabato mawduuca markii saldhigga imaaraadka carabta ee milatari la siinayay wasiirka gaashaandhigga somaliland baad ahayd arrintaa maxaad ka ogeyd waa in waxa laga wada hadlayay ku jirtaa mawduucyada laga hadlayay ku jirtaa dabadeedna wax hadda dib loogu noqonayo heshiisyaa jira wax badan oo markaa laakiin haddii la yidhaa waa la khalday ama haddii allaba ku reeyahay meeshii ciidamo kala qabsaday waa nin iyada wuxuu doonu sheegaya laakiin waxaan aaminsanahay xisbiga naftiisu iyo dowladdu halka ka maqani waa gaabka maqan oo meesha ka muuqda waxa weeye waa la kala yara go-ay oo maaragtay in muddo ah baan xidhiirkii xisbinimadii iyo tala bixintiisii midla imanin waxaan rajaynaynaa inaan hadda dib u bilowno oo xarakadii xisbigu lahaan jiray la soo celiyo